وإنا إليه راجعون ما صدني يحوجات أدوت شره بالله أنا جرب عليه حبيست إن الدين عند الله إسلام إن ريحامك واحد عنده دي موايا قال لا لا يكتوسا صدن شركوا الوايا رامك ليه حبيسني وهذا وحال لنا قف كان دان كان maxaa ku dhagan ila waa qof inta hoos laga baxay waa qof la miirtay waa qof si jeed iyo soo jeed loo garaacay subhanallah azza wa jalla bismillahir rahmanir rahim assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh qubaraha waxaan ku dul istaagi doonaa godobkii weynaa ee XXL shaha waa in hobane oo taqaana ma maynaya in cali koora oo taqaanaan waa dul istaagaya maanta sidoo kale qubaraha waxaan ku dul istaagi doonaa maxaabiistii walwalnayd oo aanu daweyno laas caano dawadoodii ka helnay ayadana waa dul istaagi doonaa waxaan ka marnayn oo aan qodobka ugu dambeeyay si fiican ugu dul istaagi doonaa ku tusi doonaana gobannimada waxa la yiraahdo daaroodku leeyahay erer ayadoo meel ka dhacayso in daaro caawa u gurmanayo xero direed u gurmanayo dad lagu xasuuqayo Soomaaliya oo daarood ku dhimanayo oo ogaadeen ku dhimanayo ayadana waa dul istaagi doonaa aan ku hormaro inuu hobana ku hormaraya inuu hobana ma taqaanaan ina cali koraal yahay waa godobka weyn XXS ah ee isticmaalaan nimanka la yiraahdo dabacayuun ama isaaq xirtaa waa ninka ku magacaaban wasiirka wax sheeg waa ninka reerkiisii oo dhan reerku asagu sheegto ama taargadooda ku goosho oo maanta dagaal ku jira asagu Hargeysa la fadhiya inuu garaadada kacaayo horta ninka aqoon waxaan rabaa inaan ninka skiin baro rabaa ninka inaan skiin baro baan rabaa hadda ka hor asagoo meel fagaara ka hadlaya ayuu sir calooshiisa ku jidhay banaanka keen baatane ila dhageyso aad waa isweydiisay ninkan maxaa laga hayaa ninkan waxa laga hayaa isticmaalka la isticmaalay fiidiyoyaashii laga duubaa laga hayaa ana idin sheegay waa bil Ramadaan waxaan hubin anigu xilligan laguma dhaco laakiin waa fursan weyda in la sheego ninkan waxa uu yiri anoo yar oo 30 iyo xoogaa jir ma qof yarba waa qofka cimrigiisa waa bahaafe ma qof yar baa 30 iyo xoogaa jir 30 iyo xoogaa ana jire 30 iyo xoogaa jir waa la isticmaal Ramadaan luqadaas waa qof kasta fahmay waa la isticmaala alashan hoos ka sii weey waxay dhahaan reexamarka luqada reexamarka yadaa iyo ciyaal suuqa luqadooda waxay dhahaan waa lagu yaacay asagoo 30 xoogaa jire baa lagu yaacay subhanallah azza wa jalla asaga ba garanaya horta ninka in badan daas weydiisay ama nin hartiya tahay ama nin daaro tahay maskaxdaaduna isweydiisay war qofkan maxaa ka siiya muxuu ka abuuray daas weydiisay ninkan wax kale kama si ahee xilliga la isticmaalayay fiidiyoyada laga duubay ayaa la hayaa oo way asagaaba sheegay in la isticmaalay muxuu iska qaranaya ceeb waa laba afroojis adaaba afkaaga ka sheegay in lagu isticmaalay maxay tahay waxa ku qarsoon marka fiidiyowgu muxuu soo kordhinay qofkaas waa la kufsaday kufsi xaalkii waa la garanaya haday soo bandhigaan waxa la soo bandhigayaa waa qofkii oo asagii oo la kufsanayo maxaa macnaha ku jira waxa macnaha ay sheegay ninkani dadnimo shishe uma dhaan waa dhawaad asagoo hadlayaan dhageysta waxa uu leeyahay nabadoon baan ahayo aabahayna nabadoon buu ahaayo asagoo dad kale celinaya ayuu aabahay ku dhintay been buu ka sheegay aabihi geerida aabihi been buu ka sheegay ana idin sheegay ana dhintiriskiisa dhan haya horta ina ay koore laba yiraahdo koore waa awowgi Saleebaan cali baa leeyahay aabihi inaasna habona loo jiray habone oday doqona dhalay doqon ma taqaana doqon waxa leeyahay reer miyiga kala kala joogo qofka doqonka waa ka naylaha iyo qoraha ka nuugan weeyo hadii aan la ku reeyay laclaca oo aan waxa jabsan loo dirsan horta oday doqona dhalay koorana aabihi ma hay waa awowgi way koorana inaasta u wato waa awowgi doqonnimo aabihi magaciisa magaca aabihi oo doqonnimo koogiya soo ka cararaya ayuu magaca awowgi soo qaato koora sheegtay horta ogaad
كورة وأوجي أبيه ما أبهاي وحيري وحكون انتي أساقو داد كلا إلا ينبضي أصلاح والله بنتي وي أبيه ودوما أبيهيس وادوما إلا هذا لما هاي رق يجيرين أو دور شيء أو مسكين دقروها دور شيء على صهاي دور مركز دم لا برهادين وادوما يو بحالعيا درواية دير مالها كونا لقوا رقبه هذا فر أهم ركلي يا فر دقن كاس وين أو دول بهانتا كذا شيء أيها ديالو ويل بدقن ماذا وعن صدق دول بهانتا بأبيها كاسو هرت فرسانة يعني فرحان الديالو كورو يهي وحيالا مركل يجرهدنا هوس كسي باكو عضي هوس كسي باكو عضي هرت وحن نوع عاسة يعني دتكم مردم بهايسكم مشغولين دتكم بأسوي دي مركو هذا وروحان محن كيلا وروحان أنا قالك هذا المري والرير كصدقه واللي والرير كستاديالو كورو على حارك على واللي لكن وحيارها ريرها كلا أي معناها كو قرصوي waxay tahay reerka sadaqonkooda way xirtaan kani waa doqon dhumay oo reer kale heleen nimankaana helay si kasta uu isticmaalay si uu soo rafakan 100 video ka duubtay kadibna naag baa lagu darsooday isla reerka halka noo fadhi baa la yiri wasiir baa laga dhigay reerkaas ma talaysaa bari reerkaas baa ma talaysaa bari horta qaabka noocaasa معناها أمينة وهرت قف كاني قف أبوران إذا كمان مغني أضاجي حبنا هذا إسرائيل دقن كيبا دراي دقن كينا هذا السوشيال إذا كانوا ما يدور بانتا وقدوا ما يهرتوا وقدوا ما داروا وقدوا ما باكنا وقدوا ما وين حتى ميت كيس أوكرا دينه كنا صدا أوقسم مرة ماشي اللجوء أركنا هاللجوء توكت هاللجوء توكت هذا الفيديو صوب بندقيان أساقول لنتاي صوب بندقان ساسا كبانو horta ina hobane caawa ka daba geeyay ina cali koora u taqaana saleebaan hobana la yiraahdaa aabihiina nacas wuxuu ahaa marista cuna oo waxaru qooraha ka nuugaan buu aakhirkiina dhidir ba meelaha ku cunayo nolol iyo geeri la hadda lama hayo hatta lafiisa lama arag aabaha haduu garasho leeyahay garashada aabaha maanta ku soo maxan lahayd halka kartida aan ku hadlayo ama aan ku fadhiyo ama dalka ku garab taagnahay waxanihi aabaha aan ka dhaxayo nina dhiigi sama tilaabo nin kasta ay geed kasta dhicaankiisu dhala aabaha duninaha adaa nin noqonaya haduu aabaha naag noqonaysa naag dumarka yana wax ka sheegeen dumarku waa la xiniyoodiye haduu aabaha nacas dhalay ahaa nacas dhalay inaha baro kala noqonaysa intaas aan idin leeyahay marka ina habone halkaas ka dhiga qabiilkana waa ka saarnay meesha lagu arkana waa lagu toogan doonaa insha Allah biidna karim qodobka kale ee ka hadlay maanta waxa weeye maxaabiistii waalwaalnayd ee isaga ka soo fakatay ee isbitaalka qaybta cilaajka u soo raastay maraaga waa kuwana odayaasha isaaq oo lahaa weligood marka ciidan ma noqon waa waalan yihiin xagay ka dhacday ninkayna lahaayeen waa ninkaas oo calaamadaha siinayeen waa waalan yahay meel xiriyaha dawladdu galaa meel kasta iska galaa waa ina hadii ku rooya laba taabtaan waa ina hadii ku rooya xarig masite waa ina hadii ku rooya geedku doona gale waaw quraan waa kala daalay oo hadii ku rooya daawo waa kala daalay irbad waa kala daalay waa seexin weynay annaga hadaba seexinay annaga daaweynay cilaaj hal maalin one day hal maalin baaninki lagu bahalkii baaninki hadii ku rooyahay baxay loo soo dhigay hay cilaajul harti hadii wax kale oo waalwaalan wax fiyo idin ko ogeeyna isaaq hadaa ogtihiina soo dira waa kuwana waa kana ninka ka sheekeynayaan asagoo xay oo ragii qabtay umahad celinaya oo nolosha iyo ka sheekeynay walaalayaalow waa mahadsantii goba ay qabatay saanana war waalidina ma noocaana war kuwiina fiyo seeyiin marka kuwiina waalwaalan hadday saan oday ku noo leefayaan oo walaalayaalow gob dhashay oo saa u yaqaanaan oo war kuwiina fiyo seeway kuwiina fiyo walla ee ayagu is soo kaxayo garbaha is soo qabtay ee maraaga isbitaalka u soo aaday waa daweynay xaasha wujuud waana haynaa laas aanan ku daweyno cilaaj oo furnay halkaas lagu dabiibaya waa la dabiibo hadda waa faxfax hadii aan ku rooyahay waagi roobdo baan soo imaanayna kuwa fiyo haysan iyo kuwa waalwaalan anagu aan hayno intaas baan ilaahay midna waa idin kugu daraya waragu waa isqabtaa dagaal haduu dhaco dagaal wax la haduu dhaco
dhimashuu leeyahay, dhaawac buu leeyahay, maxaabiis buu leeyahay. saddexdaas uu leeyahay. saddexdaas waxuma dhexeeyaan. xaaladani waa saddexdii mid ka mid ah. habraha iyo yuuska iyo hoogabaabay hebel waa la dheeltiray, hoogabaabay hebel waa walla hoogaba war waxaasi xaaja ragma. war dagaal 1 iyo 2 ma joogo. war dagaalku 1 iyo 2 ma joogo. dabada adkaysta giira futada ay figlaan arkaaye war dabada xarga ku xirta, dabada buuran xarga ku xirta oo aamuska badiya laba xinidiyoodiyo qoor baan naga haysaan kamana daba hadalna waa waalayihiin waa la qalday midna malihiine adeen raggu waa xabsi rag baa loo samaystay raggu waa haynaa anagu haddii aan ku rooyahay yooyooda iyo yuuskan iska daaya walaalayaal iska daaya. waa dagaal iyo xaalkii dhimasho dhaawac iyo maxaabiis waa xaarka dagaalka wey. saddexdaasuba ninku mutaakiriye qodob saddexaad qodob afraad ma jiro inuu dhinto inuu dhaawacmo iyo in la qabto qoriga afka looga dhago inta taas ka dhamaato. saddexdaasoo mutaaninku saddexdii uma meesha ka dhacaysa wax kaloo afareeya ma jirto. dhimasho iyo nolol wax u dhaxeeyo baaxka ma jiraan, maxaabiis iyo xurriyad wax u dhaxeeyo ma jiraan, haddii aan ku dhaawac iyo dhaawac la'aan wax u dhaxeeyo kale ma jiraan. marka taa Allah idinku duwo qodobkaas intaas galiya raggaas waa idin daweynay waana haynaa waa nooli koontay waagi robdo baanu soo imaanayna intaas aan ilaahay ala aldama yaa maqal iyo heblaaya waashay iyo haddii ku rooyay hooyaday dhul baxanta qaba yus yaan arag oo xataa waxa arkay odayaashan kamid ah fiidiyoga ma sii wada dayni odayaasha hadlay oday kamid ah ku haya Umar Maxamuud baan ahay hooyaday Umar Maxamuud weeye ayayday Umar Maxamuud baan dhalay ma hooyada baata maxay ka daa ku dhalay maxay galay daalin dhalada taayo keen yaa fiyo yaa isaaq fiyo waa kuwa maxaa gooch cad ka yaal mooyidina aan gooch cad laas aan mooyidina ana caday mooyidin baale maxaa sool mooyidin baale maxaa ka doonaysaa qof horta qof fiyo qof aan ahayn ku dhiman kara wallahi waa wada dhimanaysaa oo wada dhaawacmaysaa oo guraysan sidii galmireed nasakh yahay nasakh u dhalayo wada waalwaalano qaadiraysan wallahi thumma wallahi waa wada guraysan waxaan u guraysaan si qaab daran baa u dhamaanaysaan ereday waya ku hay bal waa kaas wax ka bedela wax maanta nolosha aad ku sugan tahay wax ka bedela soo hel wakaas nasakh u dhalayo haddii aan ku rooyahay khamriga iyo haddii aan ku rooyahay iyo qaadku dalagay ee maskaxdii ingiriis qurxoon ku waashay ingiriis baa soo lisiyay ingiriis xabada saka dhigo intaas aan idin leeyahay aan ka tag qodobka saddexaad ee dul istaagay waxa weeye halkaa waxaa ereday ka yeeraysa oo Ismaaciil Cumar Geelle wax erer ka yeeraysa. Ismaaciil Cumar Geelle waa nin dira wuxuu ka yahay Ciise qabiilkiisu hooyadii aabihii reerkay ka soo askumeen waxay degaan gobolka City xanfar baa saa u faganaysa dhulkoodina ka qaadatay laynaysa ilaa dawladoodii wadata 5 sano muddo ku dhow bay wartolaaye ku hayaan wax u taga oo u gurmada oo dhaawacooda dhaya oo haddii ala ku rooyay la dhinta daarood iyo ogaadeen baa jira daarood reer la yiraahdo oo weliba ogaadeena baa jira. hadda maalin dhawey suldaanka todobari ka suldaanki waa soo hadlay suldaankii guud ee beesha Ciise baa hadlay tolaaye muslim oo isagoo leh ogaadeen baa qoryaha wada qaatay oo dhimanaya maanta gobolka City ku dhimanaya. Ismaaciil Cumar Geelle Ismaaciil horor irir sameesha ina Cumar Xayd ay Hargeysa ku geysay iyadoo ay xamar u irir dhex fadhiyo hooyadii baa la qaxday oo haddii aan ku rooyo gobolka City ka qaxday ma ugu gurmada ayada hadduu nasabad leeyahay qabiilku dhabka yahay uusan xaqdi reereed ee daarood la yiraahdo isku filnayn. daaroodkuna waa midka hooyadii badbaadinaya ogaadeen baa hooyadii badbaadinayo xabada xanfarta iskaga dhigaya. warta gobonimada lagu sheegay waa taa gabar yar oo hadashay oo midna alaaski irirka la galay ayaa dhowr kalmo ku tiri waajiba dhowr kalmo ay dhasiyayso maanta la ordisaan bad gabadhan adeer buu yahay Ismaaciil Cumar Geelle Ismaaciil ka maanta fariisan la oo maqrib iyo maqshir ereday ku haya
oo laascaana duulimaadka ku ah oo naf iyo maal wuxuu hayay laascaana ku soo raray hooyadii gobolka city baa laga qaxi yaabi oo lagu leeyahay maalinka saxafar ku leeyahay gabadha intay garatayna waa garan waay garashadu marka kuma xirna garashadu kuma xirna inaad qof weyn tahay iyo inaad qof yar tahay xirsi faarxood yaa oogay wax laga sheegay inta la yiraahdo wax garad aruuriya biyo wax garad ha aruurin dad waayeel loo keenay garba loo fariisanaya waayeel soo aruuriyay waayeel ha aruurinee wax garad aruurshi wax garad reer gobolka city waxaan leeyahay walaalaha yaa tihiin haddii irir la sheego iyo haddii bahalka la sheego iyo hadday duulimaan ugu wada yihiin oo aan maanta u jeedno waxa irir iyo bahal ka yeeras iyo shuruusuur oo dhan idinku halayn mayno annaga isku dhiiga walaalaha iyo Soomaaliyeed baa tihiin ogaadeen iyo nala degan tihiin inta aan hadii la ku ogaadeen iyo qof ka nool yahayna ceel mudan maysaan xanfarna idin qabsan mayso Ismaaciil Umar Geelle iyo gurnuf gaarufka iyo kurtumada iyo shuruushuurka uu la qaylinayana oo laascaana ku duulayana idinku halayn mayno annagoo taana garaacayno iska ciidana baantan idinku duulanaa gacantaana idinku difaacayna oo difaaca idinku kala galayna tan annagu isku difaacayna marnaba oran mayno inay ruweeyeen nimankaan iyo Ismaaciil bay isku qabiil yihiin marna oran mayno sababtoo ah kuwaala tigiina iyo dadnimadiina garanayna Ismaaciil Umar Geelle iyo shuruusuurku wata idin qaban mayno reer gobolka city iyo reerka hadii la ku raciise noolaada idin leeyahay waa idin garab taaganahay waa idin la jirnaa idinka hadii la ku garabkiina ka bixi mayno naf iyo maalna isku meel baan ku wada dhimanaynaa shuruurna idinku halayn mayno aad baan idin salaamaya wa salaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wa barakaatuh ciao ciao